الله الرحمن الرحيم. جمعة ونكسن دمان أصحاب فيسبوك ومالين جمعة ومالين أن آد وفرح سنة تضوات كيبا مركي إن صومرته ومالين رنتي إنكستو صلاة كالوران لغو كل جماعهان لكن جمعة ومالين قارة وصلاة جمعة ورنتي فضل بدن له دادك إسوي مادان waxaan rabaa in yaroo kooban in aan ka hadlo diinteena islaamka oo runtii ah mid ku salaysan ama aan ku silan dhammaan nolosha sida aynu u noolnahay dhan hababka la rabo in uu noolaano iyo sababahan dunida u joogno waxay ku jiraan diinta oo la raaco hase yeeshee mararka qaar diinta dadka waa isku xujayaan waa la isku xujeeyaa oo xujo ayaa lagaaga dhigayaa oo aadan ka fursan karin balse hadda waxaad moodaa maanta in xal yar la helay internetka anigoo ku dhex jira ayaan waxaan arkay qiso hadda ka hor dhex martay nin runtii qisooyin fara badan laga diyaariyay oo la yiraahdo juxa waxaa la yiri juxa ayaa waxa uu guri ka kireystay nin ay isqaaneen habeenkii markuu guriga u soo hooyday ayaa guriga wuxuu ku arkay ceeb uusan hore ula socon taasoo ahayd saqafka guriga ayaa dhabaaqaya oo wuxuu sameynaa sanqadh marka dabaysha markay timaado wuu ka seexan waayey aroortii markuu waagu uu bariyay ayuu wuxuu u tagay ninkii guriga uu ka kireeyay wuxuu yidhi nin yahow guriga cilad baan ku arkay oo habeenkii lama seexan karo oo saqafkaas ayaa lulanaya dhabaaq ayuu sameynaa lagama hurdi karaa niyahow iga sameey ninka nin qaa'in uu ahaa wuxuu yidhi juxow habalwelin hana baqin saqafku wuxuu yidhi ilaahu u tasbiixsanaa juxo waa uu fahmay ninkan inuu khiyaanoolo yahay uuna ku xujeynayo diinta nin caqli badan u ahaa durbadiiba isna jawaabuu siiyo wuxuu yidhi haa waan ogahay inuu saqafku u tasbiixsanayo laakiin haddii qalbi jaleeca uu ku bato saqafka ama khushuuc fara badan uu la yimaado oo isagoo sujuudsan oo inagu soo dhaco haddii hebaa dhibaata niyahow inaga sameeyo uu yidhi inaga sameeyo marka doodaha qaar yaan la isku hurgooynin oo dadka yaa lagu horgooynin maxaa la yidhaahdaa diinta way ka qiimo badanta wayna ka weyn tahay in la isku aamusiyo oo la isku xujeeyo waxayna u baahan tahay cilmi marka please ha laga daayo diinta dadka lagu xujeynayo oo mar walba oo dooda ama waxa yimaadaan dadka loola cararayo lagu aamusinayo waad mahadsantihiin